waxbarasho ma jirto waxbarashadu dadku waxay wataan caruur bay wataan walaali waan dhawahay ma sha Allah dad ma hasantihiin alxamdulillah rabbil alamin waarun aniga idin la xiriiray waxaan joogaa magaalada Xudun degmada Xudun baan joogaa haye bal Xudun inooga waran xaaladeeda walaali Xudun alxamdulillah waa lagu nabad oo waxa weeye waa magaalo waxa weeye lagu soo qaxay oo dad badan ay ku soo qaxeen oo xagga la saxanood ay ka yimaadeen magaalo saaweyn ma aha runtii oo magaalo weyn oo hadda magaalada waxa weeye dad badan oo bulshada qaadi karta ma aha walaal dadka soo qaxay way badan tahay oo dad badan baa hadda magaalada ku soo qaxay ana ku qiyaasayno inay 700 qoys walaal xagga la saxanood bay ka yimaadeen waayo marka xakeebay digeen hadii aad sheegteen magaalada kooban tahay oo aysan lahayn meelo badan oo dadkaas qaadi kara walaalay dadku waxa weeye horta dadku Xudun iyo la saxanood waa isku magaranaysa waxa weeye waa isku magaalo marka dadku way siiyeen dadku marka xaafadaha ay degan yihiin oo waxa laga yaabaa gurigiiba inay 15 qof ama wax ka yar ama wax ka bay ku jiraan yani gurigii nusku aaba ay dad badan oo yani aan lagu talagelinay ku jiraan walaalay wallahi duruufu waa adag yihiin runtii waxa weeye xilligan hadda lagu jiro waxa weeye dhulkii oo abaar ah oo waxa weeye biyuhu ay yar yihiin xoolaha miyigu ay iska jirecsan yihiin waxa weeye dadkii marka saddex waxyaabood baa iskugu darsamay dadka hadda halkan yimi maadaama deegaankoodii iyo degmadoodii ay yimaadeen saddexda waxa iskugu darsamay waxa weeye dhanka colaad baa waxa weeye soo barakicisay dhanna waxa weeye dhulkii abaari ka jirto runtii abaarta hadda taagan ay tahay abaar magaraysaa yani walwalkeeda leh saddexaad kale waxa weeye magaaladii runtii waxa weeye ay biyo la'aan ka jirto biyuhu ay yar yihiin idinka ka odayaal ahaan maxaa sameeysan oo talaabo u qaadeen walaal anagu alxamdulillah anagu dadkayga aad baan u soo dhaweynay oo waayo dadkayga waxa weeye anagu wax ka soo dhiba dadkayga waan la qaybsanay marka dadka aad baan u soo dhaweynay dad baa jira ma garanaysa waxa weeyaan magaalada iyagu qoysaan aan ka soo jeedin oo iyagu meelo kale ama meel la saxano ka shisha ama meelo kale iyagu deegaan ku ah laakiin halka yimi dadka aad baan u soo dhaweynay dadka kale ee magaalada u dhashanayna aad baan u soo dhaweynay inaan guriyihiisu faaruqino in magaranaysa waxa weeye dadkii deegaanka marka hore meesha uu ahaa inay qol iskugu guuraan oo dadka kalena ay qol u baneeyaan in wixii karaanka iyaga aanu gaarsiino oo hadii ay noqoto cunto iyo hadii ay noqoto biyaha aan isku daynayna wax ka gaarsiino waayo waxbarashada iyo caafimaadka ka waran iyo biyaha deegmadaas walaali waxbarasho ma jirto waxbarashadu dadku waxay wataan caruur bay wataan caruurta ay wataan waxbarasho oo hadda la geeyay ma jirto gurigoodii bay joogaan waana jecel lahay hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nafta noo daayo inaanu sameeyno inaanu bal ardayda dhalinyarada iyo caruurta ay qoysasku wataan inaanu meel iskugu geyno oo aanu waxbarno barinta xaaladda hagaagayso walaal waxa weeye adigu waa 80 kilomitir meelaha isu jirta la taanad iyo xudud